عبد الشكور واكو سلامي ان دمان انت دغيسانيسان waa islaamay عبد الشكور ma hasantahay go'aankan wuxuu ahaa go'aan guddiga ammaanka ee qaramada midoobay ay maanta ka gaareen arrin dawladda Kenya walaalaha naxan dariska nahay ee geysay golaha ammaanka oo ahay in qabateyn ama sharci ka soo baxay qaramada midoobay oo la yiraahdo 1267 lagu daro shabaabna hore ugu jirtay mid la dhaho 751 labadan isku mid yihiin oo isku wax labadaba cuna qabteen ay tahay ururka gaxda lagu cuna qabateenay ayaa shaki weyn aan ka qabnay dawladda Kenya sababta arrintaas u bushkareynayso markii aan baaritaan sameeyna wax noo soo baxay nuguna raacin dhamaan hay'adaha gargaarka oo adduunka oo dhan ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo kuwa gaarka ah NGO-yada international-ka maxay dhamaan guddiyada rayidka ah ee Soomaaliya ka shaqeeyo nooc ay doonaan noqdaan oo ah inay dhibaato ka soo gaari karto dad masaakiin oo shacab oo Soomaaliyeed oo ku hoos nool meesha qolooyinka nabadgelyada ah oo nabadiidka meelaha ay haystaan inaan loo geyn karin waxyaabihii kaalmo lagu kaalmeyn lahaa taas oo mid aan loo dulqaadan karin ahayd marka alxamdulillah dowladda Soomaaliya way soo bandhigtay ujeedkeeda iyo inaad cunaqabateyntan ayna ahayn cunaqabateyn laga damacsan yahay wanaag fara badan tahay in xoogaa lagu dhibaateeyo ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dadkan ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii ay ganacsigooda oo shakiyar la geliyo si fudud loogu dari karo argagixiso marka waa ka dhiidinay alxamdulillah waanu ku guulaysanay arrintii waa qaramada midoobay waa diideen inay qabaan waxayna qaateen boodkii annaga aan fadnay oo ahay in la xoojiyo oo qabateenka hadda ay ku jirto shabaab dowladda Kenya nagala shaqaysa kaas sidii loo soo afjari lahaa ururka argagixisada oo lacaga badan sameeyo dhuxusha waa ku gartay marka diidmada qaramada midoobay kale sidoo ku yimid ma inta la fariistaa cod gacantaagi wax diidmada kale sidoo ku yimid dhageystayaasha daawo bidhaamis marka arrimahan la keeno kale qaramada midoobay marka hore waxa ka discuss gargaan ama ka wada hadlaan dhamaan xubnaha qaramada midoobay oo u qaabilsan amniga oo ka kooban 5 qolooyinkan rigliga ah ama permanentiga ah iyo 10 doorasho ku yimaado labadii sano mar la soo doorto 15 ayaa ka wada hadla arrinta marka marka la keeno waxa u baahanahay kaliya in hal wadan oo yiraahdo arrintan ama hal celiyo faahfaahinana laga soo siiyo ama arrintan arrin ku habboon ma aha oo argumentiga labada dhinac ay dhageystaan markayna dhageysteen Kenya dhageysteen waxay go'aan ku gaareen 6 wadan oo ka mid ah tiri arrintan waa in la joojiyaa waana in dowladda Kenya ay kala shaqeyso dowladda Soomaaliya wana qabateynta hadda jirto isku mid yihiin mid ay rabto inay geliyaan shabaabka waa gartay marka ma 6 un baa fadhisay yaa iyagoo kale Kenya go'aankooda taageeray wax aamusay wax kale maxaa jiray cid taageertay male mana aha vote ma aha marka haddii hal wadan uu yiraahdo xataa arrintan hal celiyo haddii wadamada kale rabaan waxay dhihi lahaayeen markaas may arrinta vote laga gabo laakiin haddii hal wadan yiraahdo ama 2 tiraahdo ama 10 tiraahdo ama 5 tiraahdo oo qolada kale intaan waxba dhigin macnaheedu waxa waaye inta hadasha kaliya ayaa la soo qabanaya hadalkooda waa gartay safir dawladda Soomaaliya dagaal adag kula jirta shabaab haddana shabaab argagixiso caalami in lagu daro kala sababta ay u diidayso dawladda dadka fasiraad kala duwan ay ka bixinayaan يعني maxaa dadkaas oo kale ku qancinaysa dawladda iyo shabaab in la diriro diidan oo kale dadka qaar laga yaabo inay isu arkaan maxaa dadka ku qancinay marka qofkaas waxaas aaminsan markuu dhageysto sidaan anagu u fasirnay wali waxaas aaminsan ma aha qof Soomaali hadii kara runtiina shabaab waa cadowga Soomaaliyeed shabaab wuxuu ku jirtaa cunaqabateyn qaramada midoobay gelisay 2007 oo la yiraahdo qaraar nambarkiisa yahay 751 qaraarkan rabtay Kenya inay rabtana wax ay ku kala gedsan yihiin ma jirto aan ka ahayn malaha maxaa la yiraahdaa wax la dhaho exemption oo humanitarian ama gargaar meelaha shabaabka joogo hadii kan lagu daro cid gargaar geyn karta mal dadka
shabaabka ku hoos noolna dad doortay maaha inay shabaab ku hoos noolaadaan waa dad haystaan shabaabka la haystayaal ah marka ma rabno dadka masaakiin ah oo la haystayaal ah inay gaajo ugu hoos dhintaan shabaab sidaas darteed dowladda Soomaaliya waxay cadeysay aan ku guuleysanay dowladda Kenya loo sheegay inay nagala shaqeyso una qabateynta hadda ay ku jirto shabaab oo ah 751 inay dowladda Soomaaliya kala shaqeyso sidii looga joojin lahaa meelaha uu ka soo galo hubka iyo lacagta ay ka soo gasho oo ah dhuxusha inay nagala shaqeyso in arrintaas laga joojiyo waa ku gartay meeshii hore ee shabaab ku jireen oo liiska argixisada ugu jireen iyo meesha hadda la damacsanaa yani meeshaas kale waxyaabaha iyaga oo saameynaya maxaakamada oo aan loo ogolaanaynin shabaabka kale waxa kale oo isku wada mid ma intaana ka ahayna ku iri kaliya dhinaca humanitarian exemption laakiin inta kale labada qaraar waa laba qaraar oo cunqabateyn oo isku mid ah wax wada iskaga mid ah waa gartay ugu dambeyntii safiir Soomaaliya iyo Kenya wali xoogaa madmadoob ka dhex jira arinta khilaafkooda go'aamadan oo kale wax xiriir ma leeyahay arintii diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay wallahi anaga ma dhihi karno anagu ma hadli karno dowladda Kenya iyo waxay damacsantaa laakiin shaki weyn oo waxaan ka qabnaa waxyaabaha ay sameynayaan dhammaan inay la xiriiraan arrimaha diblomaasiga laakiin waxaan rajaynaynaa inay cashar u noqoto arrintan ka dhacday qaramada midoobay annaga dad dariskeena oo walaalaheena waxaan rabnaa inaan wanaag ku wada noolaano aan geeska Afrika wanaag ku wada noolaano la dagaalanana dhammaan argagixisada noocay doonto ha noqotay guusha Soomaaliya soo gaartay safiirkii Soomaaliya ee qaramada midoobay tahay maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda waxay uga dhigan tahay masaakiinna Soomaaliyeed inaan gaajo u dhamaanaynin oo hay'adihii caalamiga ahaa ee gargaarka sida garmeershii dhibaato ka dhacdo masiibo ka dhacdo ee gargaar gaarsiin karaan ta kale inaanan qof Soomaali ah lagu soo xadgudbi karin ee Soomaaliya tahay dowlad jirto oo sovereign ah oo madax bannaan cid u sheegi karto oo ama daris ha noqoto ama cid kale ha noqotana sida howlaheedu u fushanaysa aysan jirin waa Soomaaliya waa dal madax bannaan cid noo sheegi kartana ma wixii anaga noo dana waana naqaana wixii noo dana cadawgeena waa shabaabna si loola dirado waa sahlan tahay haddii aan kaalmo ka helno dhammaan wadamada dariskeena ah iyo international community wadan arinta ganacsiga kale qaybihii ugu dambeeyay wareysiga marayna safiir adoo mahadsan arinta ganacsiga kale haddii go'aankan sida Kenya rabto uu noqon lahaa yani saameyntu yeelan lahaa maxkamada ma shirkadaha Soomaalida ee Kenya ku yaalaan oo kala awood u siinay inay yani sidee noqon lahayd ganacsatada Soomaalida howlahooda wallahi anaga ma naqaan laakiin cabsida nagu jirto waxay tahay inay u isticmaalaan inay ganacsatada Soomaaliyeed oo masaakiina pressure ku saaraan sida la socotay dowladda Kenya hadda waxay baabi'isay anteenooyin iyo maxalida raadaaro ay leeyihiin telecommunication company oo Soomaaliya gudaheeda ku taala ayagoo ku sheegaya inay yihiin wadan dhexdhexaad ah haddana dhibaato u geysanaya Somali business community marka waxaan isleeyahay ujeedada waa ka weyn tahay annaga ma cadeyn karno qalbigiisa wixii ku jira laakiin sida wax ku socdaan ma aha si oo diblomaasi ah oo respect ah marka waxaan leeyahay qaraarka maanta soo baxay wuxuu siinayaa dowladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed inay ummad madax bannaan lana ka dagaalami karto kana dhiidi karto dulmi kasto meel kasto dhinac walba oo ka yimaado ugu dambeyntii maxaad leedahay safiir adigoo aad u mahadsan ugu dambeyn waxaan leeyahay Soomaaliya iskale Soomaali ha u midowdo Soomaali cadowgan haysto oo shabaabka dhibaatada nagu hayo aan u wada midowna san iskaga qaban lahayn waana sahlan tahay aniga san aaminsanahay waa cadow Soomaaliyeed waa cadow ummadda Soomaaliyeed jiritaankeena hortaagan ya aan u midowna aan isu nimaado aan mataqaanaa ka shaqeyno sida shabaab iskaga qaban lahayn